wararka ka imaanaya magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania ayaa sheegaya in falalkaasi ka dhacay oo ku dhaawacmay madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump. Dhaawaca madaxweyne Trump ayaa la sheegay inuu ka soo gaaray dhanka sare ee dhegta midig isagoo haatan lagu daweynayo xarumo caafimaad oo halkaasi ku yaala. laamaha ammaanka ee loo yaqaano Secret Serviceska ayaa toogasho ku dilay ninkii la tuhunsanaa inuu isagu weerarkaasi ka dambeeyay. wararka ayaa sidoo kale intaasi ku daraya in isla goobtaasi laga maqlay rasaas kale taasoo sababtay dhaawaca laba qof oo kale oo mid ka mid ah labadaasi qof lagu sheegay dhaawaciisu inuu halis yahay oo haatan lagu dabiibayo xarumaha caafimaadka. laamaha baaritaanka sameeyay ee dawladda ayaa markiiba sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid shirqool dil ah oo la maagana in lagu kharajiyo madaxweynihii hore dalka Mareykanka Donald Trump oo isagu markaasi khudbad ka jeedinayay magaalada la yiraahdo Butler oo ku taala gobolka Pennsylvania dalka Mareykanka. madaxweynaha haatan xilka haya Joe Biden oo isagu markiiba ka hadlay arrinkaasi ayaa ku tilmaamay falan lagu aqoon dalka Mareykanka inuu ka dhaco isla markaana laamaha ammaanka ka dalbaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan u soo gudbiyaan sababta uu falkaasi u dhacay cidii ka dambeysay iyo tuunka halkaasi ka dhashay. si lamida laamaha ugu sareeya xisbiyada dimuqraadiga iyo republicanka ayaa iyaguba fariimo soo gaarsiiyay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo dhaawaca kaasoo ku jira xarun caafimaad waxayna ku tilmaameen falkaasi fal aad iyo aad looga xumaado. si lamida madaxweynayaashii hore dalka Mareykanka ayaa iyagu dhaleeceeyay oo ku tilmaamay falkaasi fal leh argagax iyo wax laga xumaado. inkastoo ilaa hadda aan la xaqiijin ayaa hadana waxa la sheegay in caafimaadka madaxweyne Trump uu weli dhakhaatiirtu ay ku mashquulsan yihiin hase yeeshee wararka ka dambeeya ee ka soo baxa xaaladda madaxweynaha dhaawaca ee dalka Mareykanka hore xilka u soo qabtay Donald Trump ayaynu ku soo gudbin doonaa wararkayga iyo barnaamijyada soo socda.